madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa xafiiskiisa qasriga madaxtooyada Soomaaliland waxa uu ku qaabilay kulan oo kula qaatay qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliland ee ku nool wadanka gudihiisa oo wax soo saar ama hal abuur la yimid kuwaasoo madaxweynaha Soomaaliland hortiisa ku soo bandhigay hal abuur ay curiyeen ama wax soo saar ay ku sameeyeen wadanka gudihiisa kana mid ahaayeen dharka hidaha iyo dhaqanka dharka noocyadiisa kala duwan aan hidaha ahayn kariimada loogu talagalay in jirka la mariyo kariimada gaarka u ah dumarka dharka caruurta saliida loogu talagalay in jirka lagu dhaashado ama la marsado iyo waliba qalab kale oo casri ah oo isagana loogu talagalay ciyaaraha amaba isboortiga iyo adeegyo kale oo daayartaasi ay la yimaadeen isla markaana ay curiyeen kuwaasoo ku sameeyay wadanka gudihiisa daayartaasi wax ku baratay jaamacadaha iyo dugsiyada kala duwan ee dalka ku yaala intooda badan ayaa madaxweynaha Soomaaliland hortiisa waxa ay ku soo bandhigeen hal abuurkaasi ay wadanka gudihiisa ku sameeyeen kuwaasoo lagaga maarmi doono waxyaabo kala duwan oo qaali ah oo wadanka dibadiisa inooga iman jiray ama laga keensan jiray kaasoo madaxweynaha Soomaaliland uu mid uga dhageystay daayartaasi waxyaabaha ay sameeyeen caqabadii ka hor yimi iyo waliba waxyaabaha ay u baahan yihiin iyagoo ka hadlaya arrimahaasina waxa ka mid hadaladoodii ugu horeyn madaxweynaha waanu mahadnaqaynaa inuu dhalinyarta soo dhaweeyo dhiirigeliyana halabuurkooga iyo wax soo saarkooga anigu halabuurkaygu waxa weeye xagga tiknoolajiyada u janjeeraa waxaan sanad iyo badh ka hor sameeyay maktabad online Somali library oo ku kaydiyay qoraalada ay Soomaalidu qortay ama iyaga laga qoray alxamdulillah waxaan isku day markaa inaan kiriyad gareeyo cunooyinkan runtii cunooyinka waa cuno powder waxyaabahan ka sameeyo waxa kamid ah cunooyinka dalkeena iyo waxyaabahan midhaha ka soo baxa wadankeena ka sameeya aniga hal abuurkaygu waxa weeyaan in tiknoolajiyada magacaygu waxa weeyaan Saami Gabas waxaan aasaasay suuqii ugu horeeyay ee habka online-ka ah loogaga adeegto dalka gudihiisa sidaa daraadeed waxay igu kaliftay inaan beero oo sameeyo calafka xoolaha oo si degdeg ah ku baxaya 10 cashir gudahood biyo aan loo baahnayn badan waa saliid madaxa loo isticmaalo oo kaaro ka samaysan oo dabiici ah haddaan u gudbo shaqadayda waqtigan bilaabay waxaan bilaabay 2012 gurigaygan ku bilaabay waxaan sameeyaa maryaha sida hidii dhaqanka madaxweyne Kooriyaala oo sharaxo toobka aroosadaha waxyaabaha sameeyay marka aan soo qaaday maanta waxa kamid ah laptopkan xagan adapterskii uu ku leeyahay xagan godkiisii wuxuu leeyahay cajalad waxa iyaguna kulankaasi ka hadlay la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha bulshada maayirka caasimadda Hargeysa kuwaasoo iftiimiyay sida loogu baahan yahay in daayartan la dhiirigeliyo oo maanta halkan qasriga madaxtooyada ku soo dhaweynaya dhalinyaro kala duwan oo la timi hal abuur kala duwan kana kala socda gobolada Soomaaliland in badan oo kamid ah runtii waan uga mahadcelinaynaa madaxweynaha mar labaad markii fikirkan aan u gudbinay in dhalinyaradaasi maanta ay u baahan yihiin in la dhiirigeliyo wax soo saarkoodana uu indhihiisa ku arko runtii waxa weeye qofka bini'aadmiga markuu hamiga la yimaado wax sameeyo waxa weeyaan waxa ka soo baxay wax wanaagsan waxa weeye waxa aynu ku shaqeynayno dhan cid ka soo shaqeynaysa haddii laakiin qofku isiraahdo ma aad ku shaqo tagtid cilmigaad baratay waxay noqonaysaa inaad u shaqeyso cid kale aad baa u mahadsantiin saa u soo bandhigteen wasiirada wasaaradaha ciyaaraha iyo maalgashiga oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa ay sharaxeen sida ay muhiimka u tahay in daayartaasi wax lala qabto isla markaana waxay ku dhiirigeliyeen inay waan iska warhayn doonaa wax badan idin weyniye inaanu idin dhiirigelino yani wacyigiina kor u qaadno laakiin idinkoo age-kaas oo Saudi yar ayaa haddana ku fikirteen inaad waxa iyo product-ka iyo waxa qiimaha leh adduunka waxyaabaha ugu qaalisan kamid ah saliidahaas iyo shaambooyadaas iyo farshaxankaasba inuu idinku jira muujiseen anaga wasiir waxa aad iyo aad farxad noogu ah in waqtigan
aynu joogno waanu aad anigu dhallinyarada ugu yaro dhuun daldaloolo inay jiraan dhallinyaro fekerkooda ay ku jirto inay wax sameeyaan waana ogtihiin dee siyaasadda dowladdana inay tahay iminka in dhallinyarada kor loo soo qaado haddaa maanta intiinaba wada halabuuray jirtaan kolley inka badanna way jirtaa aad baanu idin soo dhaweynaynaa aad baanu wax idinla qabanaynaa waxaanu qaban karno ugu dambeyntii ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo halkaasi ka hadlay ayaa daayartaasi uga mahad celiyay wax soo saarkaasi ay sameeyeen isla markaana ay dalka iyo dadkaba uga baahi tireen aad iyo aad baan idin soo dhaweynaya marka hore ku soo dhawaada gurigiina madaxtooyada waxaa noo sharafa inaad ku fadhidaan kuraasida wasiirada idinkoo daayar inaad wax wada fikir cusub oo aad keenteen halabuura aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa waa idin ducaynaynaa waa idinla shaqaynaynaa kolley aniga aad iyo aad bay farxad gaara igu taado oo weli maan arag dhallinyarada waxay abuureen waa ikow da'da keli ah oo yacni qaarkood aad la yaab leeyihiin oo inantii tidhi ma haysta laab da'yarayd oo tidhi waxaan samaynayaa cream iyo cunto laabna ma hayo cidinagama taakulaysa waxaan doonaya wax lala qabto hadalkaasi waa gar weliba qolada chemical ka shaqaynaysa marka wuxuu chemical yahay waxaa xaqna aad u leedihiin inaa heshaan cid idinka caawisa caafimaad ahaan iyo backage ahaan iyo suuqgelinba waayo chemicalku wuu ka dhib badan yahay kuwa kalena qiimahoodaba way leeyihiin oo inanka higher secondary electronics computerka loo xasabeeyay de waa cajiiba weeye aad baa la soo dhaweynay haddaa halka timaadeen oo madaxweyne timaadeen oo xafiiskii madaxtooyada wasiirada timaadeen waxaa la weydiin doonaa maxaa laydin soo qabtay idinku waa shaqayseen su-aashaasaa la iskula noqonaya waxaynu qabanaynaa caqligiinaas baynu caqli ku daraynaa horta marka hore waxaynu abuuraynaa intiinaa maanta halkaa timid inaad noqotaan gole ama forumka wax abuurka oo dad is ogaada oo xidhiir leh network waa in la helaa kolley waar anagu wax ma abuuro hal abuur ma lihin xataa anagu farshaxan kale kuma wanaagsani kolley meeyarku wuu ku jirayaa odayga magaalada networka anna waa idin higsanayaa soo gaari maayo waa iga daayartina waa dheeraynaysaane anna waa soo higsanaya cabdilwaaxidna coordinator buu ka ahaanaya muxuu qabanayaa networka laysugu yeedho maxaa ka soo baxaya waxaan u baahannahay in la daraasadeeyo intiini maanta halka timid waxaa qabateen iyo qof walba waxa lala qaban karo si qarannimo ka laboratory u baahan ka suuq u baahan ka dhiirigelin u baahan yacni in la soo gacan qabto qofkan dhallinyarada keligii wuxuu qabto dowlad ahaan maaha baryo maaha duco xaq baa uleedin waa waajib aad ku leedin qofka qaranka mar hadduu qofku halabuur keenay qaranka waa ku waajib inuu halabuurkaa la taageero isla taagis la qabto sidaynu isu taageerana waxa networkaan la sameeyo la derso wax caamoo laydin qaban karo guud ahaana iyo wax qof loo kordhin karo geesta kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo si watay hadalkiisa ayaa waxa uu ka hadlay muhiimadda ay wadanka u leeyihiin wax soo saarkan ay dhalinyaradu sameeyeen waxaana uu rajeeyay inay halkaasi ka sii ambaqaadaan marka la daraasadeeyo ee wixii la isla garto awoodda waa la helaya fikirku baa meesha ummad baynu nahay hadday dhaqaalo tahay hadday awood kale tahay waa la helaya marka talada meel loo jid bixiyo marka cabdilwaaxid waxaan leeyahay dade kolley in badan oo kale maanta noomana way jiraane oo fikrada la inuu dadka ururino oo iska bixin kara waayeen taa waa bixinayna qolada idaacadda oo dhareero ee kuwa miidiyaha dowladda kuwa kale publicana waa loo sheegaya inay siiyaan time koota oo hal abuurka qof walba fikradiisa intan le ku sharxo taa kuwa dowladdeeda waa la amri kuwa kalena waa loo howlgelaya baacimirka waa qodob koowaad waxyaalaha kale sida laabka oo kale sanadkan laabku wuu jiray miisaaniyadda in sanadka dambe by January la iibiyo laab lacagtiisu waxoogay milyan ku dhowdahay oo si dhaba u kantaroola waxa la ismariyo iyo waxa la cuno dalka soo gala haddaynu ka hadla idinkana gacan qabad fiican ayaa ladinka siin doonaa dhalinyaro ahaan horumarka iyo halabuurkooda waxaynu u samaynay sanduuq la yidhaha sanduuqa halabuurka dhalinyarada xukuumad ahaan waan ku shubnay intii ugu horreysay
waa markii ugu horeysay ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu tan iyo waqtigii uu talada wadanka la wareegay uu kula noocan oo kala uu kula qaatay qasriga madaxtooyada Soomaaliland gaar ahaan daayar wax soo saar kala duwan oo wadanka gudihiisa sameeyay. Axmed Saki Daayir Xasan iyo Axmed Jaamac Faarax wararka telefishinka qaranka Soomaaliland qasriga madaxtooyada Soomaaliland ee Hargeysa.